Liverpool ayaa ku jirta kaalinta afraad ee kala sareynta horyaalka Premier League iyagoo xilli ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah. Dhanka kale Manchester United ayaa ku jirta kaalinta 13aad ee kala sareynta horyaalka iyadoo aan wali wax horumar ah sameyn xilli ciyaareedkan. Manchester United ayaa rikooro fiican oo taariikhi ah ka haysata Liverpool, waxaana ay badisay 91 ka mid ah 242 kulan oo ay wada ciyaareen labada kooxood iyadoo Liverpool ay badisay 81 kulan. Manchester United ayaa badisay kaliya hal kulan 12 kulan ee ugu dambeeyay ay la ciyaartay Liverpool horyaalka Premier League iyadoo ay guushooda kaliya ee muddadan lagu guda jiro ay ahayd 2-1 goolkii xilli ciyaareedkii 2022-2023. Liverpool ayaa si fiican ku bilaabatay kooxda Arne Slot waxayna wajihi doontaa tijaabadii ugu horeysay ay ku sameeyaan tababarahooda cusub ee dhamaadka usbuucan. Mohamed Salah ayaa wacdaro ka dhigay kooxdiisa xilli ciyaareedkan waxaana uu isku dayi doonaa inuu soo bandhigo bandhigiisa usbuucan. Manchester United ayaa soo bandhigtay iyadoona wacdaro ay ka muujinayso awoodeeda xilli ciyaareedkan, laakiin waxa ay ahaayeen kuwo aan iswaafaqsanayn bilihii ugu dambeeyay. Liverpool waa kooxda ugu fiican waana in ay awoodaan inay badiso kulankan.